مدن مدحوينها دولة قبلت كفر قلبيت مدن عبد العزيز لفتقرين قفنا كاونتي مانديرا مدن علي إبراهيم روبا iyo dhammaan siyaasiyiintu hogaaminayo iyo dhammaan qiibaha bulshada ka qaatay xafladan hadda ay ahaan lahayn oday dhaqamada culmadiinka dhalinyarada dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaanta ugu sharafta badan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib mudane madaxweyne sida hore loo sheegay soo dhow markoodi mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa martiqaadkan ku fidiyay beesha garre guud ahaan cid kastaba si gooni ah uga qayb qaadatay iyadoo kula jeeda ujeedadu ay tahay kaliya casho sharaf lagu sameynayo iyo kulan isbarashaa intaas waxaa marqaatima doontaa daqiiqad gudahood muddahan soo buuxsamay howlkan waa dhammaan qiibaha bulshada ay ka kooban tahay beeshu ay ka kooban tahay siyaasiyiinta culmadiinka dhalinyarada duubiyada dhammaantood sida awgeed wax kale oo lama jeedno waa kulan isbarashaa kulan cashaa soo dhow baan ku leenahay. Your Excellency, once again we welcome you as a community of Garre. This evening we have had a chat with you and we say once again welcome. As earlier said by our people here, myself I have been to Mogadishu about 3 times, met the community in Mogadishu, but it's first time that we have had an opportunity of getting the President of Southwest coming and sitting with us. Most welcome. We also welcome you as Kenyans. This is our country. This is where your people are. This is where we are living. And we say on behalf of all Kenyans, welcome again. mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaada waxaan ku leenahay haddii aan nahay beesha Garre labada gacmo furan ku soo dhawaaw wadankaaga ku soo dhawaaw tolkaaga ku soo dhawaaw Kenya haddaan joogno haddaan nahay beesha Garre waxaan ku leenahay markaad marti tahay wadanka marti u tahay beeshaada ayaa ku joogta adigu marti kuma tihid wadankan markaad imaadid tolkaagi baad u timid wadankaagi baad timid kaliya waan soo socdaa kaliya intaas baad noo sheegaysaa soo dhawaada waa taariikhda ugu horeysa aan malaynaa intaan ogahay aniga in laba madaxweyne digil iyo mirif ay leeyihiin ay meel isugu imaadaan waxaan rajaynayaa ilaahina ka baryaaya insha Allah in kulankoo ay maanta ku kulmeen uu noqon doono kali sida Ingiriiska ay dhahaan a journey of 1,000 miles oo talaabad koowaad ku bilowdo talaabadaas ay noqoto mid dacway ay bilaawayaan Maria wuxuu yiri former MP Mandera West intan oo meesh fadhid kulli MP baan u marka abahoodan ahay arkan madaxweyne waxa ku soo dhaweynaa insha Allah sharaftaas aabanimada xildhibaanada inuu wadankiisa ku soo dhawaado marka eedeed handawaaw dadka kanu hamin geed diyaararkiinay amanta adkalaha kooyt fadaasa sooyla hatta hal han sheegay ونينا كويانا ديارنين هاو بايدو كويانا مقدشو كويانا الوا غسلن دروهچه ميلول بقوي دون ان شاء الله ديارنين هاو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada wafdigii la socday madaxweynaha oona ah wasiirka qorsheynta maalgashiga
iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo beesha walaalaheen beesha Garre sida sharafta iyo karaamada leh oo walaalnimada ay ku dheehan tahay ay ayagoona soo kala harin madaxdooda, ganacsatadooda, culamadooda, odayaalkooda, dhalinyaradooda iyo haweenkooda ay noogu soo dhaweeyeen ayna noogu sameeyeen casho sharafta caawa. midda kale oo xigto siduu sheegay mheshimiwa xildhibaane aadan xaaji dhinigun irile musinku jarta dal idad yasinku jara marka dad idal ah idinka jiro waana ku faraxsannahay maanta in walaalaheeni beesha Garre Kenya degan ay garasho ay ka imaaday lisla gartay in ay Soomaaliya ay madax iyo dal iyo walaalo ay idinka jiraan. marka annagana taas waxay noo noqonay dhiirigelin weyn oo ah in Kenya aan wax ku leenahay oo aan degno oo ayna noo joogaan dad isku duuban oo na rabo horumarka dhammaan dadka walaalaha anahay ee digili mirifle ahaan markii la yiraahdo. marka waxaana na dhahaa beel ahaan beesha Garre markaan meel walba joogno waxaan ku faannaa inaan nahay qowmiyad aan ka weynnahay qabiil sababtana ay tahay deegaano fara badan aan leenahay laakiin markaad fiiriso iska warhayn la-aanta iyo waxaa jiro gaab aan la iska warhaynin si gaara Garraha Soomaaliya ka soo jeeda wuxuu il gaara ku fiirinayaa gargaarka aad u fidinaysaan. waxaa jiro gaab dhinac walba Soomaaliya isbeddelaa ka socda gaab siyaasadeeda jira oo dadka aan ku xisaabtamayno oo halkan jooga ee ganacsatada leh oo siyaasiyiinta leh oo barofesoorada leh oo aqoonta Garraha Kenya ayaa loogu yimaadaa dhinaca aqoonta Ethiopia Soomaaliya idinka ayaa u haysta sidaas la mid ah ganacsiga idinka ugu horeeya dadkan kale xoog un bay hayaan mooyaane wixii kale oo dhan nacfigii oo dhan dhinaca aqoonta iyo dhinacii kale dhaqaalaha idinka ayaa haysta. waxaa idinka rabaa marka aqoontiina inaad ku kabtaan dadkiina. anna waxaan nahay Soomaaliya markaan joogno awoodda Garre Soomaaliya Kenya Ethiopia intaba waa ku faana annaga keligeena maaha awooddaas waxaa ku faana qowmiyadda digili mirifle oo Garre ka tirsan. madaxweyne ugu horreyntii aniga waxaan soo kulannay Garowe anoo u kacay caleemasaarkii madaxweyne Diini oo Puntland yaan soo aragnay meesha yaan kugu salaamay waxaa yidhi istusa madaxweynihii koonfur galbeed waxaana ii ahayd marka walaalkayn oo maaragtay ra'iiskayn madaxweynahayn oo annaga dambeysha danna inaad tahay taasaan ixtiraamsana marka soo dhawaaw sidaa tirina maxaa yeelay Kenya waa dul maaragtay arrimaha badan ka socdaan nabadaan qabnaa arrimaha Soomaaliya badi inta laga wadaa anakiina haddaad marka aad fiirisid waxay u egtahay inaan maaragtay dad warla aan nahay war ka haynin waxay ka socdo Soomaaliya horta taasna ceeb aan la tahay. runtii galabta maanta markaan kulannay odayaashan kulley lama joogin waxyaalo badan baan ka hadalnay waana baraarujisay wax badan baan noo sheegtay in dhulkaasay inaad uga baahan tihiin inaan tala wada wadano oo maaragtay iskaashi wada sameyno. madaxweyne diyaar baan u nahay annaga haddaan siyaasiyiinta oo maaragtay wadadweynahan la jiraan waan dadaalayna intaan karayno maxaa yeelay beeshan Garre Soomaaliya Kenya Ethiopia way ku nool yihiin waa dana laandheer marka dawladda Soomaaliyana horta soo Garre meesha deganna digil mirifle ay yihiin digilki todobadii digil midaan ka mid nahay oo maleynay dad naga badan inay jiraan
dabarra kiso ayaan ugu dhow inta kale waa naga yariin umayna qabiil laan dheer baan nahay marka dawladdaasna kolley inaan maaragtay qaybtaanan qaadano oo maaragtay wax wada qabsi ah dawlad ahaan iyo shakhsi ahaan iyo dad ahaan ee wada qabsano marka anigoo mithilaya dawladda Kenya nahay hadda qofka ugu sareeyo meesha fadhiyo waxaan rabaa afka dawladda Kenya inaan kugu soo dhaweeyo wadanka Kenya oona aan ku dhaho annaga kulleybo cilmi war baa naga maqan wax badan baa maanta fahanay intaan kula fadhino warkaasna waxaan rabaa muddaan hadda ahayn inaan shicibkaanada aan ku dhiirigelino oon gaarsiino because mararka qaarkood informationka markuu kugu yar yahay wax badan baa ku dhaaf informationka aad uu nagu yar yahay arrinta maanta ugu muhiimsan oo maanta ka bilaabanaysa meeshan waa isku xirnaashada bulshadeeni digil iyo mirif oona ka mid nahay beesha gare annaga inta joogaan gara libin gara koofur gara baadiya gara kalenjin iyo gara maro qaybtan insha Allah inaan isku kaashano arrinta programka si fiican aan u xoojino aan sameeyno azuumaadkan azuuntana insha Allah shicibkaanu hortaagan waxaan ka ballan qaadayaa insha Allah waxaan ka ballan qaadayaa haddii Ilaahay uu nala garab galo inaan azuumaadka 100% xoojinayno oona imaan doono Soomaaliya imaan doono mar horna madaxweynaha Soomaaliya uu azuumay mahad aad iyo aad u weyn buu leeyahay salaantana naga gaarsii duruufta waqtiga baa noo saameyn inaan imaano iyo qoraalka Ilaahay waxaan rabnaa inaan Muqdishona imaano baydhawona imaano ummaddaanada si fiican aan xiriirka iyo walaaltinimada aan si fiican u muujino si xoojino insha Allah ta'ala gabanaga Mandera County senatorka xildhibaanka imbiga adinka xildhibaan ma imbiga tahay imbiga imbiyadii hore ganacsatada beelweynta gare odayaasha culummada dhalinyarada gabdhaha siyaasiyiinta kale aqoon-yahanada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii caawa sharaf iyo farxad ayay noo tahay waana wax aan filaynay waaye waxaan rabaa inaan marka ugu horeyso beelweynta gare oo walaalaha annaga ah aan uga mahad celiyo soo dhaweyntan iyo marxabeynta iyo walaalnimada iyo casho sharaftan qiimaha badan oo ixtiraamka iyo xurmada iyo mas'uuliyadda ku jirto oo loo wada dhan yahay culummo iyo caamo iyo ganacsato iyo siyaasi kulli la wada yimid inaan kaga mahad celiyo jazaakum allahu khayran walaal jiro aad iyo aad u mahadsantihiin waxayna tusaysaa wixii aan aaminsanayn iyo walaalnimadii aan qabnay iyo wixii aan inka tabaynay inay sidoodii u jiraan marka aad iyo aad u mahadsantihiin midda labaad annaga waxaan ka nimid Soomaaliya wafdi ballaaran baan ahayn arrimo shaqaan u nimid Kenya hadduu Ilaahay yiraaho saddexdan beri oo soo socotana waa joogi doonaa kadibna dalkii baan ku noqon doonaa insha Allah dalkii iyo dadkii aan ka nimid oo dadkiina ahaa oo ehelkiina ahaa oo idin tirsanayay way nabad qabaan waa fiican yihiin dadkaas ayaga ahaan mas'uul u nahay waana dadkiina dadka ugu xoolaha badan ugu khayraadka badan ugu dhulka badan ugu populationka badan dadka adinka ah ka soo jeedaan waaye dadkaasaan mas'uul u nahay ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in aan gaarno dadkaas nin walba wixii uu rabo inuu ka shaqeysto oo mustaqbalkeeda oo helaan ka shaqeynaynaa waxaan sheekaysanay mas'uuliyiinta inta joogto waana waxaan aaminsanayn oo hore u aaminsanayn dadka waxaa la yiraahaa dhaliyo dhagdow dhaliyahooba dheegda dhagdow nin kasta wuu og yahay ninka la dhashay meeshuu joogo dhaliyo dhagta waa
waa laydinku xisaabtamayaa waxaa idinku xisaabtamaya dadkaas reer koonfur galbeed waxaa idinku xisaabtamayo oodnan ogeyn oo idin tirsanayo digil iyo miriflo meel walba uu joogo waxaa idin tirsanayo dadkii beesha ah ka soo jeedeen oo Garre oo aan aaminsanahay dadka degan Kenya inay 2 jeer ka badan yihiin dadka degan Soomaaliya 2 jeer maxaa yeelay baay iyo shabeellada hoose waa degan shabeellada hoose inta degmo ay tahay 8 degmo waaye 8 degmo dad degan waaye 8 degmo laga helayo oon is aqoonin oo u baahan dadkaas ayaga adinka dad u ah adinka ehel u ah waa idin tirsanayaan waa idin xisaabanayaan waa idin ka warhaayaan waa in ku xisaabtamayaan maalinko haday waxay soo gaaraan meeshooday ayagana maxay ahayd ka dhibsanayaan waxay u baahan yihiin marka maanta ilaahay mahadiisa horumarka dadka Garre oo Kenya joogo oo aqoonta ah iyo bisaylka iyo ganacsiga ay haystaan ma haystaan ay culaysyadaas jiro dadka walaalihiina ah ina u gurmataan oo aqoontii waxbarashada ka kaalmeysaan waxa Soomaaliya lagu joogo waa jaaliyadaha dibadaha jiro ama meel kasta ama Kenya ha joogeen ama dibad kale ha joogeen nin walba dalkiisa iyo dadkiisa waa ka warhaaya dalkii iyo dadkii ugu fiicnaaba leedihiin marka ugu horeyso waxaan rabnaa horta inaad aamintaan oo ogaataan dal iyo dad inuu ka jiro inta oo idin xitirsanaayo oo idin xisaabanayo oo in ka warhaayo inaad dad dirtaan oo dadkii la soo fiiriyo annagana hadduu Ilaahay yiraaho tabliiq yaan samayn doonaa dadaan soo diri doonaa siyaasiyiin dhaqan ah dhalinyaro ah oo idin yimaado oo deegaanadiina tago oo ilaa iyo Mandheera tago oo meel walba oo joogtaan yimaado oo in kaga sheekeeyo wadankii iyo waxa lagu nool yahay iyo waxa la isku yahay iyo sida la yahay iyo Soomaalinimada iyo waxa aan ka sheekeynayno intaba in kaga sheekeeyo yaan maxay ahayd soo diri doonaa insha Allah adinkana waxaan ka rabnaa dadkaas walaalihiina ah maxay taraysaa hadiiba Garrihii wax tari weyseen ninka digil iyo miriflanimo in ku jibsanaay oo waxaan kaga sugaay goorma gaaraysan kii Garrihii la gaari la adeedo tiiba rabnaa markii inaad wax ka bedeshaan insha Allah marka aad iyo aad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntan aan soo dhaweyseen insha Allah de waa waxaan filaynay oo walaalnimadii iyo aan aaminsanayn ah walaal jiro waxaan si gooni ah ugu mahad celinayaa governorka iyo senatorka iyo xildhibaanka oo runtii wax badan aan xiriir aan isla sameeynay iyo fahanka fiican oo ka qabaan dalka iyo dadkii firfircoonida iyo ka warqabka dadka haddii ay inta joogaan iyo haday xagga joogaanbo aruurintooda intaba iyo siyaasiyiinta kale oo MPgii hore aadan iyo dadka kale oo jooga oo dhan sida aad isugu xilqaanteen oo aad mas'uuliyadda isaga saarteen aad ugu mahadsantihiin insha Allah xiriirka anaga iyo isla socodka anaga iyo iswarhayntaanada iyo iswalaashiga anaga iyo walaalnimada anaga inta waa ka badan doontaa maxaa yeelay waxa wax la isku taraayo adduunyada waaye aakhira nin walba amalkiisa waaye in adduunka aan isku walaashano oo wax wanaagsan iskala shaqeyno oo isgarabsano yaa muhiim noo ah taasan ka wada shaqeyn doonaa dalkiina waaye ganacsatada gudoomiyaha ganacsatada aad u mahadsan yahay waxaan leenahay inuu ku soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada deegaankiina ku soo dhawaada meel in ka jecel yahay oo in ka tabayo maalgashi ka sameeysta mashaariic ka fuliya business ka sameeya dadka dhalinyarada oo aqoon-yahanada oo inta joogo wax soo bartay hay yimaadeen shaqaha u yimaadeen siyaasadha u yimaadeen inta xil laga qabanayo dhan ha ka mid noqdeen oo wax ka qabteen aynagana waa soo dhaweynayna insha Allah adinkana guul baa idin rajeynayna aad iyo aad u mahadsantiin